xogo iyo faahfaahinno dheeri ayaa ka soo baxaya in ka badan 24 saac dagaal ka socda gobolka Hiiraan yaa ku sugan deegaanada lagu dagaalamay militariga Soomaaliya guusha ay ka gaareen dagaalkan kooxda Al-Shabaab oo in ka badan maleeshiyaadkii ugu badnaa markaasi kula wareegay dagaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago xogo ugu dambeeya dagaalkan xilligan dagaalka ayaa ka soconaya deegaanka teedana oo degmada Maxasho gobolka Hiiraan wararkii ugu dambeeyay qasaaraha dagaalka ka dhashay cid si rasmi ah deegaanada lagu dagaalamay gacanta ku haysa wararkii ugu dambeeyay ayaa muuqaalkan idin kula wadaagi doona soo dhawaada saaxiibayaal waa maalinimo xada taariikhda ku aasaysan tahay 2 bisha 8 Agoosto sanadda 2020 dagaal in ka badan 24 saac qaatay duqeymo in ka badan iyaguna intaasi socday ayaa tan iyo xalay waxay ka socdeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan saaka waa berigii hore xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen deegaanka Xansarraqay oo u dhow deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan halkaasi waxay kula wareegeen maleeshiyada maalinimadii shalay ahayd halkaasi ka go'doonsanaa waxayna xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Suula iyo sidoo kale deegaanka Xansarraqay oo u dhow deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan militariga Soomaaliya qaybta 20aad ee markaas iyagoo ka dagaalama gobolka Hiiraan ayaa waxay ku sugan yihiin deegaanka Teedaan ee gobolka Hiiraan halkaasi waa la isku horfadhiyaa wali dagaalku uu soconaya qasaara in ka badan 10 askari ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaalkan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan dhinaca kooxda Al-Shabaab waxa la sheegay in saraakiisha ugu badnaa looga qafaashay maxaabiis fara badan laga qabsaday in ka badan dhowr gaadiid oo dagaalkan halkaas lagu la wareegay dhinaca kale duqeymo ayaa ka soconaya deegaanada ay ku hareeraysan yihiin kooxda Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaasanaya saaxiibada caalamka ayaana duqeymihii ugu badnaa iyo dagaalkii ugu badnaa waxay haatan ay kula jiraan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalku wali waa soconaya macada cid si rasmi ah oo la wareegtay deegaanada Suulay iyo sidoo kale Xansarraqay balse warar qaar ama xoog soo baxay ay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay u suurta gashay inay gacanta kula wareegaan deegaanka Xansarraqay iyo Suulay oo markaas u dhow degmada Teedaan ee gobolka Hiiraan dhinaca kalena militariga qaybta 20aad iyagu difaac waxay kaga jiraan deegaanka Teedaan oo u dhow degmada Maxasho gobolka Hiiraan halkaas ayaa la sheegay in markaasi hub iyo markaasi gurmado kala duwan ay ku gaareen militariga Soomaaliya qaybta 20aad sidoo weyn uga dagaalamo gobolka Hiiraan taliyaha hogaaminaya Cali Xaanshe Cali Cagay ayaana isaguna waxa uu sheegay in markaasi militariga qaybta 20aad ay si weyn ula dagaalami doonaan ilaa iyo markaasi inta laga saarayo xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaanka u dhow degmada Teedaan ee gobolka Hiiraan dhinaca shabaab ayagana waxa markaasi gaaray gurmadyo kala duwan ay ka soo ururiyeen kooxdu goobaha ay markaasi kaga sugan yihiin gobolada Hiiraan shabeellada dhexe iyo sidoo kale meelo kale waxayna si weyn ugu dagaalamayaan inay gacanta ku dhigaan isku socodka wadooyinka muhiimka ah ee markaasi isku xira deegaamooyinka Teedaan iyo sidoo kale degmada Maxasho iyo deegaano kale militariga Soomaaliya ayaa iyaguna markaasi arintaasi ka soo horjeeda waxayna markaasi dagaalkii ugu adkaa xilligan ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab sidoo kale wararku waxay tilmaamayaan in markaasi ay socdaan duqeymo dhanka cirka ah oo iyaguna markaasi lagu beegsanayo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ilaa iyo haatan macada markaasi waa ama dawladda federaalka Soomaaliya war ay mayna ka soo saarin dagaalkan balse wali waa la soo horfadhiya rasaasta goosgooska ayana la maqlayaa dadka deegaanka waxay markaasi inoo xaqiijiyeen in dagaalku wali soconayo oo markaasi aan la xaqiijin karin cid si rasmiga goobaha lagu dagaalamay ugu sugan balse militariga Soomaaliya qaybta 20aad ayaa iyaguna markaasi waxay tilmaameen in xilligan wixii ka dambeeyay ay soo afjari doonaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab mudooyinka u dambeeyay dalka waxa ka soconaya dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab shalay ay ahayd markii lagu dagaalamay deegaanka Suulay oo u dhow degmada Matamaaraade waa markaasi Hiiraan ama markaasi degmada Teedaan ee gobolka Hiiraan maamulka gobolka Hiiraan war goor dhaweed ka soo baxay ayay markaasi waxay sheegeen inay kula wareegeen deegaano markaasi ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaano u dhow degmada Matamaaraade ee gobolka Hiiraan balse macada war markaasi ila madax banaan oo labada dhinac ka madax banaan oo xaqiijin kara in markaasi ay militariga Soomaaliya ay si weyn ula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan maamulka gobolka Hiiraan isagoo markaasi dhaleeceyn kala duwan ayuu wajahaya manacada sida uu dagaalkan uu ku wajahi doono ciidamada xoogga dalka ayaana markaasi xilligan ayuu ku sugan aagaga lagu dagaalamay ama markaasi difaac kaga jira maamulka gobolka Hiiraan oo hogaamiye gudoomiyaha gobolka Hiiraan Xasan Maxamed Xuseen oo markaasi isagoo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa ilaa iyo haatan war ka soo saarin dagaalkan waxaana u muuqata ama markaasi u muuqdaaba kuwa markaasi ama la soconba ama markaasiba aan dagaalkan si weyn ugu baraarugsanayn
gobolka Hiiraan oo inta badan ay kooxda al-shabaab ama deegaano ka tirsan bay ku sugan yihiin degmada Maxaas iyo ku sugan yihiin iyo sidoo kale degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan halkaas gacanta ay ku hayeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab waxayna ilaa haatan u suurta gashay inay la wareegaan deegaanka Xasarraqay iyo sidoo kale deegaanka Suulay oo shal lagu dagaalamay maleeshiyaadku kooxa markaasi ka go'doonsanaa deegaanka Suulay oo maalinnimadii shalay dagaal xooggan lagu galay ayaana maanta suurta gashay inay soo badbaadsadaan oo ay gacanta ku dhigaan sidoo kale gawaari ay markaasi la wareegeen ayaa markaasi ay tilmaamayaan xogaha qaar militariga qaybta 12aad ayaa iyagu ku sugan deegaanka Matabaan ee gobolka Hiiraan waxayna markaasi ay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeyaba ay la wareegi doonaan qayb ka tirsan gobolka waa gobolka Hiiraan dhinaca gobolka Shabeellada Dhexe hadii ay eegno iyagu waxa ka soconaya howlgallo kala duwan ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya deegaanka Masaajid Cali Guduud ama markaasi oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe maamulka Hirshabelle ayay iskaga bixin kooxdu waxayna xoog ay soo saareen dagaalkan tan iyo shalay ka soconaya deegaanka waa markaasi Matabaan ama markaasi ciidaamada deegaanka Teedaan u dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxayna markaasi ay tilmaameen in xilligan wixii ka dambeeyaba ay la wareegi doonaan deegaanadaasi iyagoo gurmado kala duwan ayaa soo gaaraya kooxda al-shabaab oo markaasi iyagu deegaanadan gacanta ugu surtay ilaa iyo haatan waa la soo fadhiyaa ma cadda cid si rasmi ah gacanta ugu haysa dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo waramayna ka soo saarin waxaana markaasi la rajeynayaa in galabka dambe maanta war uu ka soo baxo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed militariga qaybta waa markaasi 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan haddaba waxyaabaha ka soo kordha dagaalkan iyo sidoo kale cidda markaasi la wareegtay deegaanada markaasi ilaa haatan la isku horfadhiyo wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kale haddii aynu eegno magaalada Laascaanood ee maamulka Waqooyi Bari maanta waxaa gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa halkaasi u gaaray in markaasi laga wada hadlo maxaabiis ku xiran maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaana ka qayb gali doona warkaasi sanad guuradii ka soo wareegatay markii dibadda loo taagay la aasaasay maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya waxa halkaasi kula kulmi doona maxaabiis laga haysto maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya oo ku go'doonsan magaalada Laascaanood ee maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Cabdulqaadir Cali Firdhiye uu hanjabaad ku jeediyay dawladda federaalka ayraada waa markaasi maamulka Somaliland waxaana markaasi hanjabaadaasi kadib maamulka Waqooyi Bari uu soo bandhigay gaadiid dagaal oo fara badan waxaana markaasi maamulka Waqooyi Bari aan hore u ogeyn ay ka goosteen xildhibaano iyo sidoo kale waa markaasi dad fara badan oo u guuray maamulka Somaliland Fayma Qoja ayaa iyadoo ugu dambeysay oo markaasi ka goosatay maamulka Waqooyi Bari waxayna ku biirtay maamulka Somaliland ee qaybta ka Soomaaliya gobolada waqooyi ee Somaliland iyagu sheegay inay Soomaaliya ka go'aan dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaan xilligan laga soo warinaya maamulka Waqooyi Bari ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulamo la qaadan doona odayaasha dhaqanka gobolka Sool wuxuu kala hadli doonaa xaaladda ku gadaamay deegaanadaasi dhinaca kale maamulka Puntland khilaaf ayaa kala dhaxeeya iyadoo markaasi maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland uu xiriirkooda soo wanaagsanaanayo waxayna doonayaan inay meesha ka saaraan maamulka Waqooyi Bari oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ka dhaxdhaasatay shalay ahayd markii magaalada Garowe 28 sano guuradii ka soo wareegatay ciidamo markaasi la sheegay fara badan in lagu soo bandhigay magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal haddaba waxyaabaha ka soo kordha dagaalka ka soconaya gobolka Hiiraan iyo sababta ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu gaaray magaalada Laascaanood iyo waxyaabaha markaasi laga leeyahay wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa